waxaan videogan idinku soo bandhigayaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan East Africa. East Africa markaan ku leeyahay waa Kenya, Tanzania, Soomaaliya, Zanzibar, dhulkaanoo idil weeyaan. dhulkaanoo idil magaalada ugu quruxda badan la wada tilmaamo kulli waa qiyaasi kartaa culayska ay leedahay. fadlan nala sii joog. haddaad ku cusub tahay sidoo kale channelkan subscribe ta ha ka ilaawin, videogan inaad like saartid asxaabtaadana aad la wadaagtid. شو كنا يا عبدي؟ mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan East Africa. East Africa waxa la isku yiraahdaa East Africa waa bariga Africa, waxaana la isku yiraahdaa Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, area-dan oo idil. Tanzania, Uganda, Zanzibar, dhulkan oo idil ku wada jiro East Africa la yiraahdaa. qiyaas bal magaalada ugu quruxda badan ama magaalooyinka ugu quruxda badan East Africa marka lagu soo daro magaaladaas magaalo noocay noqonay. magaaladan raba maanta inaan idin soo bandhigo waa magaalo Malindi la yiraahdo. Malindi quruxdeeda heer waxay gaartay meel walba oo hotel ah la seexdo, martida lagu soo dhaweeyo lagu yiraahdo meeshan cadaana iskale, meeshan Talyaani iskale, meeshan Faransiis iskale lagu yiraahdo. dadka deegaanka beeray iska abuurtaan, nolol maalmeedkooda iska ciirsadaan, nolosha simple-ka isaga jiraan. halka meelaha loo dalxiis tago, meelaha lagu nasto ay leeyihiin qolyo cadaan ah. annaga Soomaali ahaan koonfurta Talyaaniga uu gumaystay waxaan inta u badan muhiimadiisa caasimadaha isugu tagnaa. caasimadaha ay dadku wada yimaadaan. hatta Kenya, Nairobi aan ku wada kulanaa. Nairobi ay dadku idil wada joogaan. dadka gobol joogo meesha uu soo aadaa, kan kale meesha uu soo aadaa. laakiin halka dadka kale East Africaanka kale ay muhiimada siiyaan deegaankooda inay qurxiyaan, hagaajistaan, bilicda magaaladooda ay soo saaraan. annaga waa kaga duwanaa. Talyaaniga markuu koonfurta haystay xamar waxyaabaha uu ka qabtay marka political ahaan, siyaasad ahaan laga soo tagaa, inta ugu badan wuxuu xoog saaray dhulka cagaarka ah, wabiyada ay kor maraan, Shabeelle iyo Jubba, dhulkan uu xoog saaray. Janaalo xoog saaray, Bravo xoog saaray, Markuu xoog saaray. meelaha dheefta leh, wax soo saarka leh oo lagu nasto ama wax dheef dhaqaale uu ka sameyn karo uu arko meel noocaas ay ahayn. magaaladan raba hadeer marka magaaladan raba inaan ku soo bandhigo quruxdeeda ku muujiya waa magaalo la yiraahdo Malindi. Malindi waxay dhacdaa goboladan kostiga ama xeebaha Kenya dhacay ay kamid tahay. asalkeeda waxa dhagax dhigaa la sheegaa Cumaaniyiintii. sidoo kale sida annaga naftirkeena ziyaaro ama booqasho aan ku soo marnay maanta, waxa horay u soo maray magaaladan nin la oran jiray Vasco da Gama oo Portugal ahaa. horaan ugu soo hadalnay video gooni ah YouTube-ku ku jira, waadna daawan kartaa. magaaladan waa magaalo aad u qurux badan. waxa ku diriray Portugiiska iyo Cumaan. meel walba aad martid masaajida ku yaalo, dhowr mitir ka bacdi masaajida ku yaalo, wadooyin korkooda masaajid lagu dhisay. dadka dhulkan degan wax soo saarkay muhiimada siiyaan, waxaana la sheegaa inay degan yihiin laba qabiil la kala yiraahdo waxa la sheegaa inay degan yihiin laba qola oo la yiraahdo Baajuun iyo Garyama. Baajuunta waxay muhiimad siiyaan xeebaha iyo badda wax ka soo baxa, ay muhiimad siiyaan ay ku nool yihiin.
halka gariyaamadana muhiimad ay siiyaan dhulka waxa ka soo baxo dalaga dhulka ka soo baxo ay muhiimad siiyaan ay ku tiirsan yihiin islaam dadku u badan waxay jecel yihiin islaam sababtoo ah Cumaaniyiinta halkan cabaar bay joogeen ku dhawaad 500 sano ay halkan joogeen halka غزوات ama dagaalo uu dhaxmaray ayagay Boortaqiiska Cumaaniyiinta iyo Boortaqiiska kaga dambeeyay Cumaaniyiinta ku yimid Boortaqiiska dib dambe yimid Hapo ilipokuwa stage ya Mombasa kitambo. Ha? Sawa. waxyaabaha quruxda magaalada muujinaya waxa koow ka ah in magaaladan qayb kamid ah bad ay marto halka qaybta dambana ay ka maro wabi macnaheeda biyo dhanaan iyo biyo macaan ayay u dhaxaysaa magaalada biyaha macaanka wuxuu suurta geliyaa inta badan in dhulka uu green noqdo dhulkan waa dhul oo maxaa la yiraahdaa dhul beereed waa dhul carro madow ah waa wixii lagu ridaa dhul ay ka soo baxaan waa sida idin muuqata meeshan hadda dadka qaar waxay u fahmayaan in meesha meel resort ay tahay meel loo diyaariyay dalxiisayaasha inay yimaadaan oo gaar ah inay u fahmaan ma aha magaaladu idilaasaan u qurux badan quruxdana u jeedid ama muuqaalkan meesha ay leedahay Malindiyo idil macnaheedu waa xaafad walbo Malindi dhanka xeebaha xiga saane u samaysanta meel anaga hadda lacag aan ku soo galnay ma aha waa maqaaxid iska yar oo .com laga yiraahdo area-da Nairobi amal way lacagaha ku baxo shaah lagu cabo lacagta u buuranna ma aha meel loo hagaajiyo inay dalxiisayaasha imaadaanna ma aha halka hadda ka kacay meel kale aad tagtid saan u bay qurux badan quruxdan waxa uu yeelayo waa biyaha macaanka wabiga ah iyo biyaha badda taawa dalxiisayaasha waxa macnaha u yeelay dalxiisayaasha ay u jecel yihiin ama dadka nasar raba magaaladan ay muhiimad u siinayaan waa taas wengine parliament, wengine wakapiga risasi huku nje, wengine huko Githurai. Tulikuwa hiyo siku tulikuwa tunaenda mpaka state house, unasema nini? Tulikuwa tuende mpaka maskari wako watu wengi kwa barabara. Unajua? Wanasema ni watu 340 pekee yao, 350 walifariki. Watu zaidi ya 1000 walifariki. Sasa kuna hiyo town inaitwa Githurai, hapo ilikuwa inakuwa hivyo. Risasi zilipiga usiku. Huko watu wa hizi sasa wakijua sasa kuna hizo maandamano, wanajua sasa hapa tutatekeza pesa. Sasa tunaenda pesa, huko kuna gold huko. Kwanza kwa kafanya Ruto kuna room imejaa pesa.